بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. walaalaha qaaliga ah maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaaga qisa yar. galabta markii aan guriga imid oon boostada soo furay ayaan waxaan la kulmay warqad. warqadaas aan maanta kasoo bixiyay boostada waxaa ku qornayd fartaas aad loo soo qurxiyey ay ka timid Ann Johnson naag la dhaho oo PO Boxkaas intaas iyo intaas Columbus Ohio ku socoto hebel hebel adreeskiisa saas yahay. kadib warqad waxaa meesha dhex taalla af Soomaali ku qoran oo la leeyahay salaan magacaygu waxaan ka mid ahay koox maaragtay af Soomaaliga barata af Soomaaligii baa la bartay dadkii baa maaragtay live loogu qorayaa diintii gaalnimada oo la rabaa in maaragtay laga xado diintii quruxda badneed Ilaahay na siiyey subxaana wa tacaala iyadii af Ingiriis ku qoran broshuurkoodii iyo flyerkii ay wateen waa kaas asagoo af Ingiriis ku qoran oo lagu rabo in lagu baadiyeeyo iyo asagoo af Soomaali ku qoran oo la leeyahay maaragtay qofkii raba inuu gaalnimo aado jidkaas rabnaa wal ciyaadu billah. marka walaalayaal sababta igu kaliftay inaan idinla wadaago waxaa waaye dadkan waa la gataa boostada waa la gadan karaa magacyada waa la gadan karaa oo adreesyada xaafadaha ayaa loo gataa si maaragtay loola wadaago dadka. laakiin alxamdulilah waxaan ku faraxsanahay inay usoo dhacday warqadan aniga oo ka mid walaalaha dacwada ku jira magaalada Columbus Ohio. haddana alxamdulilah aan rabo inaan idinla wadaago od ogaatiin haddii aad arrintan oo kale kugu dhacdo inaad maaragtay guriga dhiganin aad maaragtay haddii aad heli kartana aad u gudbiso culummada iyo masaajidka qofka kugu dhow si ayaga ay ula xiriiraan. waxaan meesha rabaa inaan baaq uga diro walaalaha maaragtay aaska muslim dr maxamed xasan walaalkay sheekh saciid iyo dr cabdulcasiis oo ayagana ka mid ah tiimka aaska ee muslim inaan suborgarayno waxaan waa la samayn karaa. haddii aadan dacwada ku taageeri karin afkaada oodan maaragtay maqaalka gudbin karin waxaa la rabaa inaad ku gudbiso tabartaada. sababta waxaa waaye awoodda aad leedahay waa awooddaada inaad walaalaha la qiimayso. waa ognahay hadda ka hor barxaddan ku taalla masjidka banaadir mool korkeeda ayay af Soomaali kusoo qoran ayagoo xaysiinaya maaragtay gaalnimo iyo maaragtay waxaan loo joogin yuriiduuna liyudfi'uu nuur allahi biafwaahihim waxay rabaan diinta ilaahay inay afkooda ku dumiyaan. annagana waa awoodnaa inaan kitaabo u gadno bugaag iyo broshuur u dirino annagana insha allahu tacaala aan u falcino lacalla inuu ilaahay iyagana soo hanuuniyo. marka adreeskaas waxaan rabaa inaan u diro naagtaas ayadana flyer ka hadlayo aaska muslim qofka muslimka wuxuu ilaahay ka aaminsan yahay subxaanahu wa tacaala iyo nabi ciise meesha aan ka joogno. marka waxaan rabaa inaad ogaatiin jamiican muslimiinta meel walban joognaba waana lagu maqan yahay Soomaaliya inta annaga isku maqnayn inta annaga maaragtay reer qarac iyo reer qunsax isu circirsanaynay hadda waxaa la marayaa heer af Soomaaligii la barta qofkan fiirisay af Soomaaliga u qortay waa jijaban yahay xogaa waa naxli baa la socda laakiin waxay rabtaa inay na gaalaysiiso oo ilmaheennana daaqadda ay ka tuurtay ku dhahdo qofkii maaragtay macluumaad u baahan hana la soo xiriiro ku leeyihiin insha allahu tacaala annagana waxaan samaynaynaa waxaan ugu bedeli doonaa waraaqo ka hadlaya diinta islaamka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sababtii loo soo diray quraanka iyo fadligiisa nabi ciise calayhi salaatu wasalaam inuu yahay nabi ciise oo nabi ilaahay yahay inaan maaragtay howlahaas oo dhan ayaan ugu bedeli doonaa insha allah. walaalaha maaragtay aaska muslim.com inaan caawino oon lacag iyo xoog iyo tabarba ka caawino si ay iyagana usii gudbiyaan informationadan dacwada ah ayaa la rabaa. marka aan baraarugno jiifka aan ka kacno qof walba oo kula joogo ama qof walba oo daraskaada ah adiga xaq ayaa kaa saaran inaad maaragtay dacwada u gudbiso insha allahu tacaala. ilaahina subxaana wa tacaala hana waafajiye khayrka wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.